dadaal badan ay sameeyeen shacabka gobonimo doonkii Soomaalida ogaadeenaya waxa uu horseed u noqday inuu isbedel guud ka dhaco deegaanka Soomaalida sidoo kalena banaabaxay rabshado wato ay sameeyeen shacabka Oromada waxa uu qayb muhiim ah ka qaatay isbedelka guud ee dalka Ethiopia doorasho ka dhacday Ethiopia horaanta sanadkan 2018 waxa lagu doortay Abiy Ahmed oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia inta kadib waxa isbedelay guud ahaanba siyaasadda dalka waxayna saameysay deegaanka Soomaalida iyadoo madaxweynihii waqtigaasi xilka hayay loogu baaqay inuu isxasilo dambiyo uu galay awgeed in xilka laga qaado Cabdi Ilay oo hayay 8 sano la soo dhaafay falal arxandaraana ka geystay deegaanka ayaa waxa ka sii horeysay codsi ahaa inuu xabsiga ka sii daayo dhammaan maxaabiista ku eedeysan inay ka mid yihiin ururka gobonimo doonka oo leh falbaabadan oo laba god ciqaabeedka ay ugu magacdareen jeel ogaadeen xilka qaadista Cabdi Ilay kadib waxa si ku meel gaar ah loo magacaabay inuu madaxweyne deegaanka ka noqdo Axmed Cabdi Maxamed balse maalmo yar kadib guddiga fulinta oo kulan ku yeeshay magaalada Addis Ababa waxay xilka ka xabiyoobeen Axmed Cabdi waxaana loogu magacaabay kulankaasi inuu hogaamiyo deegaanka madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar bilowga bishii Sebtembar baarlamaanka deegaanka Soomaalida ayaa waxay ansixiyeen go'aamo aad loo hadalhayay magacaabista madaxweyne Mustafa Cumar kadib dhanka kalena baarlamaanka deegaanka waxay isku raaceen in la bedelo magacii ahaa Soomaalida Ethiopia laguna bedelo kan deegaanka Soomaalida ama Somali State iyo in la bedelo calankii la isticmaali jiray xilliga Cabdi Ilay laguna bedelo kan xidigta shanta gees leh iyo midabka bilowga ee muujinaya Soomaalinimada geesta kalena waxaa gudaha ogaadeen iyo ku suqulqulaya kumanaan ka tirsan jabhadda ONLF oo isugu jira ciidamo iyo dad shacab ah ciidamo tababaro u joogay dalka Eritrea ayaa lagu daadgureeyay magaalada Tigjiga laba diyaaradood khaas ah ayaa geeyay Tigjiga ciidanka ONLF sidoo kalena waxaa Tigjiga gaaray madaxda ugu sarreysay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ONLF waxaana halkaasi ka dhacay soo baxyo iyo soo dhaweyn taariikhi ah oo aan hore uga dhicin deegaanka Soomaalida Admiral Maxamed Cumar Cismaan oo ah gudoomiyaha ugu sarreeya jabhadda oo haatan ku sugan Tigjiga waxa uu booqday jeel ogaadeen oo halkii lagu ciqaabi jiray dadka lagu tuunsan yahay inay ka mid yihiin gobonimo doonka ONLF